sida muuqaalkan aad ka dheehan kartaan waxa wali socda gabagabada dhismaha laamiga weyn ee ka soo bilaabanaya isgooska Soobe kaasoo ku eg isgooska Dawadaag oo ah goobta hadda aynu ku sugannahay muuqaalkan idinkaga muuqdana waa howlo maamulka degmada iyo waliba shacabka oo iskaashada ay ka fuliyeen bulshoy hagarli wadana igasho dadkiina horo waxaad haysaan dadkiina horo waxaad haysaan waa mahadsantahay runtii laamigan waxaa la dhagax dhigay 15 bishii koowaad ee January maanta ayaana gacanta ugu dambeysay la marsiiyay laamiga mahad ilaahay ay sugnaatay kadib waxaan u mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa iska xil saaray hawshan oo welina la rabo inay dhameystiraan waxa dhamaada waa laamigii hawshiisa dhamaatay laakiin aruurintii lacagta iyo hawsheed weli way socotaa boqolkiiba 65 lacag ku dhow ayaa la aruuriyay waxa hadda la wadaa in la dhameystiro dabcan maadaama company-ga la leeyahay waa company Soomaaliyeed oo wadankiisa ahaa waxaan ka codsanaa inuusan nagu xirin ilaa inaan lacagtiisin uusan nagu xirin laakiin oo shaqada noo qabto waxyaabaha yarka horena aan iska bixin doon anagoo ku kalsoon shacabkeen anagoo waxba hayn ayaan hawsha bilownay anagoo ku kalsoon shacabkeena ayaan laamiga dhameystirnay iyadoo wali xoolihii qayb kamid ay noo dhamaanta marka maanta adiga gelinkii hore markuu dhamaadka ayaa la dhameystiray inta yarada oo dhineen maamul ahaan bal waxaad ka warantaa maadaama arintan aad ku dhiirateen shacabkiina uu garabada ku siinaya hadda rajada halkeeba la egtahay shacabka ma yihiin kuwa ku baraarugsan inay ka qayb qaataan aad shacabku runtii dal iyo dibad soo joogo bogaadin ayaan ka helaynaa soo dhaweyn ayaan ka helnay aad ay hawshan ugu farxeen aad ayna maxaa uga qayb qaateen runtii wali way dhamaan tahay hadda oo hawshu waa intaan kuma eg oo intaan hadaan dhamayno inaan horu si socdo waa rabno wallahi arif fiican wadadan waa wada jajaban hadda waxa way si fiican soo dhaweynaa waa waqti kooban lagu tagi karaa marka waa magaalada nabadeeda way wanaagsananaysaa dhismaheeda aad way wanaagsanaanaya dabcan meeshaan ku nagu qaadan jirtay inaan 1 hour ku tagno hadda 30 minutes ayayna ku gaareen xaafadeena waan u mahad celinaynaa bulshada ka qayb qaadatay dhismaha wadadani waa mahadsantiin aba si hore waa ka fiican yahay dalami okay waa shaarabna mar karna hadda ma yada okay wax dhib lama jirto hadda nadiif waa si fiican dhismaha wadadan horta anaga marka koowaad bus aan wareerinaysa maanta markii la sameeyo waan faraxsanahay maxaa yeelay busti ayaa ka harsaa ka nasanayna waana ku mahadsan maadaama ay soo shaac bixiyeen in ay laamiga wadooyinka ay dhisaan waxaan ka sii jeclaan lahaa wada walba inay sidaas u sii dhisaan mar walbana ay horumar wadankeena ay gaarsiiyaan ala faa'iido weyn aan ugu jirto waa baabuurtii mari jirtay xagga mari jirtay oo badnaa wadada u soo leexanaysa Soomaa faa'iido weyn aan ugu jirto markaa aadaan ugu faraxsanahay waana ganacsiga badan oo markaas aanu furnayn oo hadda la furaha jiro oo agaarkayga oo hadda in la furo aan rabo si labaad in ajabkan oo hadda in la furo rabo oo furnayn in maxaa ku sheegaa anaga faa'iido weyn aan ugu jirto waa baabuurta xagga mari jireen hadda intee soo wada maraan Soomaa kulli baabuurta yaryarna intee soo marayeen insha Allah marka ma sha Allah way mahadsan waan idin salaamay boqolkiiba haddii aan soo laabano dhanka wadada ma sha Allah wadadan dib weyn aan ku qabnay dib aad u weyn siba aniga waxaan ahay nin bajaajle qolada bajaaj ku xoogsada wadadan kaliya aan wadooyin kale waxa jira aad u dhib burbursan oo dib weyn aan ku qabno waxa jira wadooyin kale xiran ma sha Allah wadadan markii aan la furay ee dhamaatay wadadan iyo wadada sayidkaba waxaan kala kulannay ma sha Allah yani adeegii hawshii u baahneen oo wax gaaban aan ku soo fuli karno dadkii rakaabka ee soo raacay bajaajka oo ayaga naftirkooda macnaha u duceynay wixii sameeyay wixii ka qayb qaatay wixii maalgeliyay wixii fikradda iska lahaa ma sha Allah tabarakallah intaan ay shacabka ay u istaageen ayaa waxay tahay arrin ku dayasho mudan oo maanta loo baahan yahay in muwaadin kasta uu ka qayb qaato dib u dhiska wadankiisa hooyo walaalayaal dhulkeena
طبعا ومشروع ugu weynaa inuu hirgalo annagoo shacabkeena ku tiirsanno hirgalo waxaan muxuu ahay aan ognahay Soomaali ahaan in laamiye badan waa la dhisay laakiin haddana laamiyada farqotirska ah ee Soomaalidu gacmahooda ku dhisteen iyagu faa'iideysteen ayuu muxuu ahay laami dheer 2 kiiloomitir dhan 2 kiiloomitir dhan muxuu ahaa sida loo qurxiyay aan dayactir ahayn ee dhameystiran ayaa muxuu ahaa sida ku hirgalay dadku qaarkooda qaybo ka mid ah degmadooda jir xaafadaha ay guryaha ku yaala in si gaar ah lacag loogu qoray arintaas ma arin shacabka iyagu ay isku qoreenaa mise waa arin maamulku ku maamulka heer gobol heer degmo shacabka ka timid laamigaanu shacabku ka yimid shacabku inuu yimid iyaga iska leh haday xaafad noqon lahayd iyo haday iskuul noqon lahayd iyo haday maxaa jaamacad noqon lahayd iyo haday qof shaqaysta noqon lahaydna looma kala harin walina heshiis way socotaa marka mar haddaan ku yiri hawsha waxa qabsaday shacabka qabsadeen de xoolo iyaga ka yimideen si doonto ee looga keenaba xoolo iyaga ka yimideen waxaan isleeyahay maanta qof waxa ka baxay iyo waxa meeshan muxuu say u muuqato wax isku qalma maahan waxa ka baxay waxa aad u yar waa marka dadka loo fiiriyo waxa meeshan ka muuqdona hadda waa waxaad u jeedid meeshan hadda noo muuqato iyo area-dan oo dhan ama laamigan guud ahaanba wuxuu waa meel biyo galaan ah dadku aad ugu rafaadaan ugu dhibtoodaan marka inaan wax isku darsano oo aan laamiga dhisano hawshan guud ahaan fikirkeedu maamulku ka yimid fulinteeduna shacabka ka timid marka in lacag la isku qoro lacagtiisa loo kala qaabeynaayo guddiga jiro haddadan aan kula hadlayo shirara socdo oo muxuu laamigan awliisa ah loomana kala kaco habeen iyo maalinba shirarkaas socdo waxa sameynayna waa bulshada qaybadeeda kala duwan halo dhiga muxuu ahaa degmadeena keergala waxa waaye dalkaada iska leh degmadaada iska leh macnaheedu waxay tahay dabcan waxa mar walbaba aan isleenahay mushkilada wadankan burburisay ee dhibaatada gaarsiisay inaan dadka wadaniyada la barin iyo waxaan inay iyagu leeyihiin dawladdii madaxweyne maxamed siyaad dalkan way dhistay shacabka markaa uu dhisay laakiin wasaaradda waxa loo tusaa inay muxuu ahay dawladdu leedahay iskuulka waxa loo tusaa in dawladdu leedahay muxuu wadada waxa loo tusaa in dawladdu leedahay cid wax kasta waxa loo tusaa in dawladdu leedahay dan marka dawladda markay burburtay waxa imaaday in wixii iyada inay leedahay loo aqoonsana la burburiyo waxaan rabnaa waxaan inaan ogaano laamigan dadka iska leh madaxweynuhu ma lahan ra'iisul wasaaraan lahayn wasiiraan lahayn gudoomiye degmaan lahayn gudoomiye gobolaan lahayn waxaan lahayn muxuu ahaa cid ka hooseyso dawladda uga hooseysan lahayn waxa iska leh shacabka iska leh xarunta iyo iskuulada xarumaha maamul iyo kuwa muxuu ahay bulshada waxbarashada iyo kuwa lamidka dadka iska leh marka dalka adaa iska leh ayaan dadka u sheegaynaa waxa qabatona adiga uun bay muxuu ahay bari taariikh u noqonayaan waxyaabaha farxadda leh waxa kamid ah xilligii muxuu ahaa dambe waxaan arkaynaa in odayaasha waaweyn iyo haweenka waaweyn iyo aabayaasha hooyayaasha markii degmada yimaado waxay ana dhisayo iska wax u qabsan waxaan ku dhiso waxbaan ku leeyahay laakiin dhalinyarada 20 jirada iyo 30 jirada iyo muxuu ahaa waxa la yiraahdo 15 jirada wax fursada meeshaas kuma lahayn oo dhihi ma karin dalka ana wax ka dhis laakiin laamigan hadda taaganna ilmaha yararka ah ee dhinacyadana maraayahay waxbay ku leeyihiin iyaga dhistay waxa dhistay dhalinyarada wax ka dhisatay iskuulaydu lacag soo aruuriyeen halkan ku jiro jaamacadaasan ku sheegay lacag soo aruuriyeen ayaa halkan ku jirto xaafada caadiga lacag laga aruuriyay oo loo sheegay halkan ku jirto marka waxaan maanta guul ah 70 jirka iyo 80 jirka waa mahadsan yihiin iyaga noo dhiseen xarumihii hore iska wax qabsan lagu dhisay laakiin maanta 20 jirka iyo 15 jirka iyo 6 jirka maanta waxa waa iska wax qabsadaan oo ka qayb qaatay asiga iska leh annaga ayaa iska leh annaga ayaa ku faanayno haddaan hadda iska burburinayno dalkeena burburina waa haddaan dhisano quruxsanana annaga ku faanayno waxaan leenahay muxuu ahay sidaas iyo sidaas ayay muxuu ahay loo dhisay dabcan
waxyaabaha oo maamulka inuu taagnaado la rabo waa dhiirigelinta waxa laga yaabaa hadii la yiraahdo shaqada intaas la qabanaya in qofka uu sirado maya waxaas lama qaban karo marka la dhahay wada jir oo aan lahayn ganacsi waaweyn aan lahayn oo aan lahayn muxuu ahaa la dhaqaalo oo zaid aan lahayn oo meelaha guriga caadi oo shacabku nool yihiin ah ayaa laami $900,000 ah iyo warta iyo $155 milyan iyo $55,000 keenayno oo from zero ka bilaabay inta waa arrin ku dhiirasho leh marka arrintaas waxay u baahan tahay qof oo muxuu ahay boga u garaacay u baahan tahay maamulku marka isagoo shacabkiisa ku kalsoon isagoo shaqada uu qabanayo iyo sida shacabkiisa ugu kalsoonaa karo ku kalsoon ayuuna muxuu arrinta boga u dhamaan maantana hadda meeshaas soo gaartay waana dhameystirayna daawadayaal qaybaha dhexe ee barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa muuqaalka ma daawanaysaan waa barnaamijka Muqdisho maanta toddobaadkan intiisii badan baa kaga hadlaynaa dhismaha laamigan dheer isgooska Danwadaag ayaa hadda ku sugannahay gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulla Afrax ayaana barnaamijka su'aalo dhowr ka weydiinaya sida maamulkiisa iyo shacabka ku nool degmadan ay ugu suurtagashay dhismaha laamigan gudoomiye markaan kugu soo laabto dad kale waxa jecel oo ka qayb qaata iyagu soo gaarsiiya kharashaad ay ugu tala galeen inay ka qayb qaataan dhismaha laamigan dadkaas oo kale marka halkee bay ugu soo hagaagi karaan hanaankee loo maraa waxa loo maraa hanan aad u diyaarsan oo runtii aad iyo aad u hufan barnaamijkaani inta ay hawshiisa socoto laamiga la dhisay waxa ka badneed inta la qorsheenay ayaa ka badneed balan aad u qurux badan ayaa loo dejiyay waxa la sameeyay 2 account oo bulshadu ay maamusho 6 qofood ayaa loo xil saaray in accountkaas maamulaan 3 qofood waxay sameeyaan company-ga marka uu shaqo qabto ayay yiraahdaan shaqada sidaas iyo sidaas ayuu company-gu ku qabtay oo laamiga dhisay wuxuu u baahan yahay lacagta intaas warqadaas soo qoran waa soo aburfugarayaan lacagtaas in loo baahan 3 qofood oo kala account ka saartay accountadu waa Dahabshiil iyo Salaam ayay ka kala fureeyeen sidoo kale waxa la sameeyay lambar toos ah oo si toos ah looga heli karo lacagta markii loogu shubo account-ka Salaam ay toos ugu dhacayso marka lacagtu ma ahan in qof caadi qaado qof caadi u loo dhiibo kada ay dhacdo account-kaas lagu shubaa sidaasana muxuu ahay loo hagaajiyaa midda xaafadda ka socotay bulshada caadiga ah oo guryaha ka socotona iyadana muxuu ahay guddiga loo sameeyay guddigaas maamulo sitimaan ayaana loo aruuriyaa kadib account-ka lagu shubaa iyadana waxaasoo dhan waa wax ku dhisan habka casriga ah ee xisaabaadka ku dhisan waa lacag loogu talagalay marka inay markii laga soo tago dhismaha laamigan iyo waxaan ay ka soo baxno hufnaanta xisaabeed ay ka soo baxdo oo ay ka soo baxdo shafaafiyada iyo waxa la yiraahdo muxuu ahay accountability ka soo baxaan oo wixii lagu noon dhiibay oo intaas ah oo intaas ahay saas ay u kala bixin leeyahay dhammaan marka dadkii na aaminay wixaas noo dhiibay waxaan u qorsheynaynaa inay muxuu ahay u hayna inay lacag yahay waliba waxa xusid mudan in lacagahaasi aan waxyaabaha lagu qarash garay aysan kamid ahayn waxyaabaha gudiyadaas dhaqaaqooda ah ay u isticmaali karin oo sharciga gudigaas u dejisan oo diidayo in loo isticmaalo muxuu ahay in ilaa idan kale amba shidaal gaar lagu la shubo meel howl loo aaday ama muxuu ahay shaqa socoto kulan lagu fangareeyo waxaas waa laga joojiyay waxaana kaliya lacagta waxa loo isticmaali karaa baahida laamiga oo company-gan laamiga dhisaayo ayaan muxuu ahay lacagtii oo naga rabay in government-kii la dhiibayo baa muxuu ahay lagu bixi kara arrintan muxuu ahay loo hufay waxaan rabaa inaan xuso dad runtii oo degmada degan iyo dad degmada degan baa oo aad u fiican ayay qabteen waxaan rabaa inaan si gaar ah anagu maad celiyo jaamacadaha gaar ahaan jaamacadda Balaasma la yiraahdo oo runtii weli nama soo gaarsin laakiin way nagu soo foolleeyeen laakiin waxaan ka haynaa inay aad iyo aad u ololeeyeen aad iyo aadna muxuu ahay ardaydeeda iyo macallimiinteeda iyo maamulkeeda aan rabaa inaan amaan gaar ah u jeediyo oo runtii muxuu ahay jaamacadihii ololeynaya dabcan way isku daysan doonaan oo ololuhu weli wuu socaya laakiin jaamacadihii aan kaalinta koowaad aan siinay xagga ololaha ardayda ay geliyeen dabcan degmada kuma taalo xataa jaamacadaasi jaamacado kale oo degmada ku yaal iyagana howlay hayaan aadan ugu mahad celinaynaa runtii dadkii kala dudunaay ee laamigan markaan u sheegnay noogu qalbiga fududaa ee noogu fahamka fiicnaa ee arrintaasi muxuu ahay nala gartay runtii amaan gaar ah nagu leeyihiin waxaan san rabnaa inaan weli aan hawsha way socotaahe
marka ugu dambayso aan lacagaha iyo hawshooda soo bandhigayno deyntii iyo wixii naga baxeen aan sidaas iyo sidaas ahayn waxyaabaha xusida mudan waxa waaye markii dadka aan isku keenayna مثلا ee aan muxuu ahaa u ololeynayna ayaa muxuu ahaa مثلا wiil dhalinyaro oo muxuu ahaa lacag aad xoog badan oo runtii odayaashii lacagtay ballan qaadeen ee ka qurux badan oo ballan qaad waxa xasuusana anagoo maskaxda ku hayno war wiilkan oo fiicnaan badana xaafadaha la galay haddana odayaashii xaafadda ayaa aabihii wuxuu noqday aabihii ugu fiicnaada haddana odayaashii xaafadda marka waxaan aqoonsada fiican oo wiilkii oo muxuu sidaas u qalbi jilicsan yahay oo hawshii u qabtay aabihii guriga markii loo tagay sidaa marka qoys barakaysan runtii qoysas noocaas oo kala soo baxeen oo tilmaamo gaar ah yeeshay jaamacada gaar ah oo runtii waxa soo baxeen oo tilmaamo gaar ah yeeshay iskuuliyaasha markaan fiirsado iskuul yar oo muxuu ahay meel iskuulada degmada ugu yara kamid ah ayaa muxuu ahay noqday iskuulka koobaad oo arinta sida ugu kacay iyo sida uu la shaqeeyay aan kaalinta koobaad siinay runtii oo iskuulada ugu yar yaraha dadka shakhsiyaadka caadiga ah wax laga aroorinayana hadda waxa waaye ma tilmaami karno sida iyo muxuu ahaa haddaan dhahno waa qiyaaseena sida ay hawshan u soo dhaweeyeen iyo sida ay muxuu ahaa noola shaqeeyeen waxaan isleeyahay waqti dheer ayay u baahan tahay in la kala tilmaamo aad iyo aad ayaan muxuu ahaa arrintaas noo dhiirigelisay waxayna gelisay inaan muxuu ahaa hadda kan waan laami dhulka maraaye in laamiye isdul saaraan samaysan karnaa haddii aan Soomaalidana markii barnaamijkan muxuu ahaa bulshada iyo ufnaanta xisaabeed loo soo bandhigo qorshiin hadda kan xiga marka laamigan lagu guuleysto muxuu yahay qorshahaynu waxa waaye degmado dhan inaan asaaskii nolosha aan ka dhameystirno asaaska noloshu waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye qofku inuu meel dego helo oo quruxsan oo nolol fiican oo helo inuu wado maro helo inuu helo muxuu ahaa barasho helo waxyaabahaas oo dhan ayaan muxuu ahaa inaan dhameystirno ayaan ka shaqaynaynaa hadday noqon lahayd laami hadday noqon lahayd meelaha kale ee dadku ay muxuu ahaa ay ka helaan noloshooda bisho oo noloshoodii muxuu u fududeyso inay noolaadaan waxaasoo dhan ayaa noo hortaagan dabcan ma aha laamiga kaliya waxa noo hirgalay laakiin laamigan uu ugu qiimo badan yahay waxa noo hirgalay inaan suuqyada dib u hagaajinay inaan arday fara badan aan waxbarasho u helno oo ay waxbarasho aan siino inaan muxuu ahaa MCAjadii degmada aan dib u kicinno inaan hawshaas oo dhan aan hagaajino ayaa noo suurta gashay dad badan baa hadda waxay isweydiinayaan reer wadajir maadaama hadda ay garabka isqabsadeen tusaale ugu horeeyay ay ku dhiiradeen inay hirgeliyaan laamigan degmooyin kale oo iyagana waxaa jira u baahan maanta wadooyinkooda inay ku daydaan wadajir oo kale sidee wax u dhistaan adoo ka faa'iideysanaya marka jaaniskan shacabka reer wadajir gudoomiye maxaad ugu baaqaysaa ku xoojin lahayd shacabka reer wadajir waa amaanaya waa bogaadinaya waanu mahad celinaya howlahan faraha badan ee aan qabanayna iyadoo lacagtu noo soo xiroon ka hor ayaan ogeyn inay muxuu ahaa ay aan qaban karno anagu iyaga ku faanayno waxaan leeyahay hadda isku xirkiina aad u sii muxuu ahaa hormaro markaan muxuu ahaa ku yiraahdo wadajir waa degmo gaara markii degmooyinka gobolka Banaadir la yiraahdo مثل markaad hadda muxuu ahaa Yurub iyo laga hadlayo degmada dadkeedu sida gaarka isku xirnay muxuu ahaa Madiina UK iyo Madiina Norway iyo Madiina ay dhiseen marka Madiina waa meel gaara ayaan isleenahay oo tilmaaman markii dadku ama xamar ha joogan ama ay muxuu ahaa joogan gobolada kale dalka joogan markii Madiina maqlaan waxaan isleenahay macna gaar ah sameeyay marka sidan hadda uga soo baxnay oo aan hawshan xoog badan u qabanay waxaan muxuu ahaa ka codsanayaa inaan dib loo laaban in la dhihin intaasaan noo qabsoontay yara muxuu waa nasanayna waxaan rabnaa sida aan hoggaan u nahay in hoggaan ku hayno in halka ka sii ambaqaadno laamigii jaalisiyaada na sugayo halkaas ayaan bulshadu tilmaamaya marka midkaan aan iska dhameystirno hawshiis laamigii jaalisiyaad oo ilaa korontada muxuu ay noo dayactireen walaalaha Turkiga noo dayactireen dhanka kalena ilaa Jasiiro muxuu meesha la yiraahdo Xalane laami saaran yahay oo isla walaalahaas noo dhameystireen waxaan rabnaa inaan ka bilaawno korontada ilaa muxuu ahaa Madiina kala qaadi maayo wadajir iyo dharkiin leh ayaa la isku yiraahdaa ilaa meesha ugu dambeeyay islaamigaas la geeyo aad iyo aad ayaan muxuu ahaa hawshaas runtii aan isleenahay waa la qaban karaa sababtu maxay tahay dadkan kala duwan ee tirada badan leh waxa laga yaabaa qofka maanta in laga qaado $50 tusaale $50 qoyska laga qaado ee laami lagu dhiso waxaan isleeyahay kalsooni u dhiman inaysan jirin $50 oo qof bixiyay
konton kale iyo $20 iyo $30 iyo $40 iyo $100 la suuq geeyay maanta laami noo dhista ayaan marayna annagoon toogan muxuu ahay walaala kale ama ha noqdaan muxuu ahay kuwa Afrikaan nala ama ha noqdaan kuwa muslim nala ama kuwa kale ha noqdaan ama kuwa walaalaana ayno muxuu adduunka dhinac kale uga jira ha noqdaan inaan marka aan ka badbaadno inaan mar walba waxa la yiraahdaa laba gacmood mar walba mid hooseysa ayaa liidato marka inaan mar walba noqono mid hooseysa inaan noqono waa aadayno dhibaysa aad iyo aadan muxuu ahay dabcan aan u leeyahay dadkay wax waan samaysan karnaahe annaguna aan isku kalsoonaano aan muxuu ahay isgarab qabanno aan muxuu ahay ogaano hawshan oo horumarinta oo muxuu ahay waxa barbar socoto in la ogaado xaafadaha dadku iska warhayaan in la ogaado qoysaska liito muxuu ahay ma ahan macnuhu kaliya in dadku aan laami kaliya iyo aan tusinayno nolosha xagga horumarka aan tusinayno kaliya waxaan rabnaa in qoysasku humanitarian ay iskaga warhayaan oo xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ahaay qofku inuusan muxuu ahay muslim ahayn ama mu'minimadiisa wax ku jiraan soo dhirgan hadoo seexdo diriskiisuna uu gaajoon yahay in bal meeshaas lafteeda ka soo bilowno inaan qoysaan iskaga warhayno in dadka liita la kaalmeeyo inaan inta waxaysatana ay arinta horumarinta iskugu yimaadaan oo arinta horumarinta la iskala qayb qaato oo cid kasta ay contribution-keeda ku darsato annaga waxaan oo furan akoonadeena waxa la yiraahdaa akoonada macnaha degmada markii la yiraahdo waxa la yiraahdaa dib u dhiska wadooyinka degmada Wadajir lama dhihin dib u dhiska wadada Buulixubi hadii la dheelahay meeshaas ay nooga dhamaanay marka waxa la yiraahdaa dib u dhiska wadooyinka degmada Wadajir inta degmada Wadajir wadooyinkeedu ay meel ka mid ah cid maanta wax ku shubi karto cid maanta aysan suurtagal inay bari ku shubi karto annagana waxa waajib nagu ah ilaahay hortiisana aan ka ballan qaadayna ummadda horteedana aan ka ballan qaadayna akoonkaas wixii ku dhaco iyo wixii dadku ku shubtaan inay ay meeshii la gelsho loo sheegi doono cad oo fahmayaan oo u muuqato aan muxuu ahay aan u tusi doona diilayna hawlaha qarankee u baahan hantidu siday ku hagaagayaan horseed ka haw hawlaha qarankee u baahan hantidu siday ku hagaagayaan horseed ka haw nabadda harsano wataan hanane dalko horumara dad yahow ku hamiya nabadda harsano wataan hanane dalko